urur siyaasadeedka dalsan oo ka mid ah ururada ku loolamaya doorashada golaha deegaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta isu soo bax ballaaran ka sameeyay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera iyagoo halkaasina ay mas'uuliyiinta urur siyaasadeedkaasi iyo boqolaal taageerayaasha ururkaasi ka mid ah ay dariiqyada ku marayeen gaadiid iyo lug iyagoo halkaasina ku dhawaaqayay ereyo ay ku taageerayaan urur siyaasadeedkaasi iyo mas'uuliyiinta oo halkaasi hadallo kala duwan uga soo jeedisay taageerayaasha urur siyaasadeedkaasi dalsan ayaa waxa ay ka warameen siyaasadda urur siyaasadeedkaasi uu doonayo inuu ku hago haddii uu ku guuleysto doorashooyinka fooda ee nagu soo haya dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay tilmaameen in habeenka caawa la isugu iman doono fagaaraha 26 Juun oo ay halkaasi mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka ku loolamaya doorashada golaha deegaanku ay khudbado kala duwan ay habeenimada ay uga soo jeediyaan taageerayaashooda weli waxaynu ku guda jirnaa urur siyaasadeedkaasi dalsane waxa uu sidoo kalena isu soo bax ballaaran oo dhoolatus uu ka sameeyay degmada Sheekh oo ka mid ah degmooyinka waaweyn ee gobolka Saaxil boqolaal ka mid ah taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta urur siyaasadeedkaasi dalsan ee degmada Sheekh ayaa waxa ay saakaaruryadii hore ku waabareysteen socdaal iyo dhoolatus ballaaran oo ay ku marayaan dariiqyada degmada Sheekh iyagoo halkaasina lulaayay astaanta ururkaasi waxayna gabagabadii isugu yimaadeen isla markaana hadal uga soo jeediyay xarunta urur siyaasadeedkaasi dalsan uu ku leeyahay degmada Sheekh gudoomiyaha urur siyaasadeedkaasi dalsan ee degmada Sheekh aadan calas ayaa waxa uu dadkaasi u soo jeediyay in ay taageeraan isla markaana ay maalinta codeyntan ay sidaasi si leeg ay u soo saaraan urur siyaasadeedkaasi dalsan waxaana uu ka codsaday taageerayaashu in ay mar walba hiil iyo hooba la garab taagnaadaan urur siyaasadeedkaasi waxaan leenahay walaalayaal si fiican baan ugu soo baxeen waa mahadsantiin codkana noo raaciya waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi hadallo kala duwan oo ay kaga hadlayaan urur siyaasadeedkaasi dalsan iyo barnaamijyada siyaasadeed ee uu doonayo inuu dalka ku hago ka soo jeediyay xubno ka mid ah musharaxiinta urur siyaasadeedkaasi dalsan ee uga sharaxan golaha deegaanka ee degmada Sheekh isla markaana tartamaya waqtigan iyo sidoo kale garabada haweenka ee urur siyaasadeedkaasi dalsan oo dhammaantoodba ka waramay urur siyaasadeedkan iyo sida uu u doonayo inuu uga qayb qaato maamulka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isu soo baxan ballaaran ee urur siyaasadeedkaasi dalsan uu ka sameeyay degmada Sheekh ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee la isugu soo baxo degmadaasi Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan